أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنالك إنجينير محمد إبراهيم عمر. maanta waxaan ka hadli doonaa ama aan xali doonaa ama weli aan ku guda jirnaa tenniska labaad oo ah simple present tennis. balse ka hor inta aanan u guda gelin cashirka, fadlan janaalku waa janaal cusub. haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato janaalkani, fadlan subscribe, share, like intuba nagu caawi si aad u hesho cashiro fara badan iyo grammar oo adiga ku xiisin geliya. intaasi waa codsi. Okay, maanta waxaan ka hadli doonaa ama aan xali doonaa exercise yar aan xali doonaa ee ku saabsan tenniska labaad ee ah simple present tennis, kaasoo ah af Soomaali. in af Soomaali aan u bedelno tennis English. hadda waa tennis of Soomaali, balse waxaan rabnaa inaan u bedelno tenniska Englishka ah oo tenniska u yahay anigoo ku dabaqayna rabnaa. Okay, waxaan leeyahay change into simple present tennis. u bedel jumlooyinkan soo socda tenniska labaad u bedel simple present tennis u bedel. balse ogow markii Soomaali lagu qoro ma lagu dhahayo u bedel tenniska hebel u bedel mu dhahayo. ilaa waxaa laga rabaa inaad fiiriso af Soomaaliga dhacdada xilliga oo dhaco. fiiri, waa dhacdo maalin kasta dhacdo, tenniska iskala weydii. waa dhacdo hadda dhacoogo, tenniska iskala weydii. saasaa laga rabaa marka inaad fiiriso. af Soomaali markii lagu weydiiyo looma baahno in tenniska u bedelayso lagu sheego. waxaad ku fahmi kartaa Soomaali ama hadalka meesha ku yaal ama dhacdada meesha ku taalo aad ku fahmi kartaa. Okay, intaas waxaa la rajeynayaa in la fahmay. Okay, aniga maanta waxaan leeyahay change into simple present tennis. jumlada soo socoto u bedel tenniska labaad ee ah simple present tennis bedelan leeyahay. Okay, su'aasha koowaad waxayna leedahay miyaan sameeyaa guriga markuu aabbaha sameeyo dabaqa. iska fiiri, waxaan leeyahay miyaan sameeyaa guriga markuu aabbaha sameeyo dabaqa. iska fiiri, dhacdadee waa horta awalan intaadan u bedelan tenniska adiga aragtid inaad u bedelo faham hadalku ma yahay hadal ama dhacdo maalin kasta dhacda. tenniska ku shaqo leh aad hadalku ma yahay hadal maalin kasta dhaco. maya kuu yahay, kaasuu yahay tenniska lagu soo baray uu yahay oo ku shaqeey. hadda marka waxaan fiirin, waxaan leeyahay miyaan sameeyaa guriga markuu aabbaha sameeyo dabaqa. dhacdo waa dhacdo maalin kasta dhaco. tenniska ku xiran marka tenniska labaad oo aad ku jirnay ah simple present tennis. waxaan tenniska labaad wuxuu ka hadlaanaanay dhacdo maalin kasta dhacdo ama fal maalin kasta dhacdo ka hadlaa Soomaa. sidaa awgeed marka jumladanna waxay noo sheegaysaa inay tahay dhacdo ama jumlad tahay dhacdo maalin kasta dhacdo. markaas kale tenniskaas kale marka waa soo daa sida nololahay u bedel tenniska labaad ee ah simple present tennis. balse ogow markii af Soomaali oo tennis ah lagu qoro laguma dhahayo u bedel tennis hebel u bedel uma dhahayo. ilaa waxaad ka fiirinaysaa dhacdada oo jumladaas yahay aad ka fiirinaysaa. Okay, waxaan filayaa in fahmi. Okay, aan u bedelna marka maxaan leeyahay miyaan sameeyaa guriga markuu aabbaha sameeyo dabaqa. meesha maxaa ku jirta aniga ku jirto Soomaa. aniga miyaan aniga sameeyaa guriga markuu aabbaha sameeyo dabaqa. maxaan leeyahay marka waxaan leeyahay ilaa aniga iska hadlo Soomaa. aniga ayaa iska hadlo tenniska markaa la joogo maxaa auxiliary ah duwa waa sax wixii singular niyaa ah daasa ah. Okay, maxaan leeyahay marka do I miyaan walaas miyaan aniga joogaa. do I markaan yiraahdo waxaan joogaa miyaan aniga. do I miyaan aniga make maana not ila jamaco ma qaato verbkiis s ma raaco. asku dhiin su'aal waa isku dhiin ila waxa subject meesha yaala muxuu yahay waa mid bular ah jamac waa asku dhiin marka su'aal waay verbka s ma raacsiin asku dhiin. ila aniga waxa la soo dhahay wixii jamaca markii la joogo tenniska labaad verbkooda s ma raacaan. haddayn hadal caadi haddayn su'aal iyo haddayn diidbaba verbkooda ma raaco wax s ah, balse waxaa raaco kuwa singularka ah kaliya aa raaco. Okay, maxaa leeyahay marka do I make the house when your father makes the history. Okay, hadda su'aasha taala marka waxaa la when goortii your father aabahaaga makes uu sameeyo the history dabaqa. make at the father maxaa s loo sii verbkiisa maxaa loo sii ilaa waxaa loo sii waxay tahay jumladu waa laba jumlo isku xiran waa. ilaa waxaa la miyaan sameeyaa guriga. fiiri, yaa ku xiri weena ku xirtay. maxaa la markii ween waa isku xirtay laba jumlo isku xirtay. balse haddaan miyaan sameeyaa guriga shib aan dhaho
aabahaa sameeyaa dabaqa qalad ay noqon laakiin jumladu waa la isku xir marka jumlad maxaa waaye way isku xiran tahay marka jumlada halaha dambe waxay tahay mid hadal caadi ah tan jumlada soo horeysana maxay tahay su'aal waa marka soo deed markaas waxa loo siiyay verb asal raacsiiyay maadaama verb asal raacsiiyay maxay tahay jumlada ugu dambeysa waxay tahay mid hadal caadi ah subject meesha yaalno mid singular ah father hal qof kaliya laga doo hi ay u dhigmataa soo deed saasa marka verbka loo raacsiiyay es loo raacsiiyay inaad saas u fahmi kartaa la rajaa okay maxaa dhaa marka do I make the house when your father makes the history miyaan aniga sameeyaa guriga goortii aabaha sameeyo dabaqa next masha Allah waxaan filaa in la jeemidaas mid labaad waxaan olahay macalinka wuu farxaa goortii aabaha farxo iska fiiri macalinka wuu farxaa goortii aabaha farxo aan olahay macalinka wuu farxaa goortii aabaha farxo iska fiiri jumladu inta aad ku degdegin ama aan tennis ama english u badal horta fiiri hadalku ma yahay hadal dhacdo maalin kasta dhacmiya kadib tenniska ka hadla ama ku shaqal leh gal marka maxaan la marka hada macalinka wuu farxaa goortii aabaha farxo tenniska labaad waa ila sida ku cad boono la u badal tenniska labaad u badal nool la maxaa leena marka macalin maxaa waa teacher maxaa siya marka the teacher maxaa marka farxad maxaa waa happy waa soo laakiin waxaa jirta waxa la yiraahdo adjective al raacsiya marka qaar happy waa happy laakiin verb ay jumla dar kala happy ma dhigaa maya laakiin maxaa jirto adjective la raacsiyo maxaa la get oo kale make oo kale raacsiya maxaa marka the teacher gets happy wuu farxaa gets happy wuu farxaa laakiin ma dhigi karo the teacher happy ma dhigi karo maxaa loo keenaa adjective loo keenaa make am get oo keenay maxaa marka the teacher macalinka gets happy wuu farxaa when goortii your father aabahaaga gets happy wuu farxo laba jumla maxay tahay labada jumla hadal caadi waa oone tenniska labaad waa macalinka wuu farxaa goortii aabaha farxo markastay farxaan labadooduba maxaa marka waa tenniska labaad maxaa marka the teacher gets happy when your father gets happy macalinka wuu farxaa goortii aabaha farxo okay next su-aasha kale saddexaad waxaan leedahay sidee wiilkan kaasoo walaalka u sameeyaa tan iska fiir jumladu ha ku wareena ardayda badan waxay ku wareeraan hadallada noocan oo kale laakiin lagu mareero awal horta isdeji hadalka dhageyso hadalka ku qoran fiirso si fiican u fiiri hadalka lagu dhahayna dhageyso ka bacdi u bedel marka tenniska balse laakiin fakta koowaad ha ku degdegin english ha u bedelin hadalka meesha ku yaala si fiican u fiiri ku celceli ama hadalka lagu dhahayo ama macalinka ama teacher ku weydiinayo ama qof ku weydiinayo dhageyso ka bacdi bilaabo shaqada laakiin balse markii koowaad ha ku degdegin shaqada okay maxaan la marka sidee wiilkan kaasoo walaalka u sameeyaa tan aan la fiiri sidee wiilkan kaasoo walaalka u sameeyaa tan awal hor mid isweydiin waxay tahay jumlada hadalka ma yahay hadal dhacdo maalin kasta صح way ku jirtaa soo ma hadal maalin kasta dhaca laakiin fakta koowaad sidee wiilkan kaasoo waa hadal iska caadi صح u sameeyaa waxay tahay tenniska labaad maxaa leena marka ila waa jumlo hala dambo su'aal ka waa hala horne caadi marka maxaa la marka subhanallah sidee wiilkan kaasoo walaalka u sameeyaa tan maxaa leena marka how sidee maxaa hawa maxaa ku xijinaa marka u sameeyaa hadal dhaca maalin kasta dhac soo ma tenniska labaadna maxaa auxiliary do idaasan do ya la siiyaa wixii jamac daasna la siiyaa wixii singular la siiyaa had jumladu maxay tahay waa mid singular sidee wiilkan maxaa waay qof kaliya waa hiyo dhigma soo ma maxaa la siiyaa marka maxaa dhaa marka maxaa la siiyaa daas la siiyaa maxaa dhaa marka how does this boy who does your brother makes this u sameeyaa sidoo wiilkan kaasoo walaalka u sameeyaa tan macnaha marka how does this boy who does your brother makes this sidoo wiilkan kaasoo walaalka u sameeyaa tan how does this boy who does your brother makes this
ama bedel waxaan dhahdaa sidee wiilkan kaas sidee gabadhan taasoo ah walaasha u samaysata maxaan dhahaa how does this girl who does your sister makes this waa intaas naga su-aasha afraad waxaan oolahay waxaan arkaa 4 nin oo ku socda lugahooda fiiri jumlada ugu dhib badan waa tan waxaan arkaa 4 nin oo ku socda lugahooda fiiri qofkan goorma arkaa maalin kasta waxaan arkaa 4 qof oo ku socda lugahooda oo lugeena arkaa oo ku dhaatayniska waay tayniska labaad asna fahmi kartaa laga rabo marka ila maalin kasta arkaa soo maalin kasta aragtaa waxaan arkaa baatiri 4 nin oo ku socda lugahooda maalin kasta aragtaa 4 nin oo lugeena tayniska marka tayniska labaad waa dhacdo maalin kasta dhacdo macnaha marka I see waxaan arkaa anigu see waxaan arkaa for me 4 nin ila man jamceed muxuu yahay min waa meesha eeda laga dhigaa min ay noqonay marka manis asku dhigay qalad waa man min women women taas waa macnaha marka aniga see waxaan arkaa for me 4 nin who am those comment waa dhigi kartaa who kuwaasoo am those kuwaasoo walks macnaha jamaca sooma maxaa dhaha marka walk ku socda from their legs lugahooda wacil maxaa dhaha anigu see waxaan arkaa from me 4 nin those or who walk from their legs waxaan arkaa 4 nin oo ku socota lugahooda ku celi I see from me who or those walk from their legs intaas waa marka next su-aasha shanaad waxayna leedahay walaashaa waxay i fahansiisaa lacagta ku jirta moobeelkeega maxaan leeyahay walaashaada waxay i fahansiisaa lacagta ku jirta moobeelkeega tayniska dhacdaan tayniska labaad waa ila maalin kasta fahansiisa Soomaa kan kale laakiin maxay tahay hadalku waa mid kale ma aan taynis ma maxaan la mid kooda wuxuu muhiimadeen waxay tahay inaan ka hadalno ama aan fahanno tayniska aan ku jirno ee simple present tense ilaad waxaan leeyahay walaasha waxay i fahansiisaa goorma i fahansiisaa every day maalin kasta i fahansiisaa soo daad marka maxaa waay tayniska labaad waa marka waxaan leeyahay walaasha waxay i fahansiisaa lacagta ku jirta moobeelkeega maxaan dhaha marka your sister walaashaada fahansiis maxaa waay understand soo laakiin understand isma la karo waxa la raakada aman habi aman ku dhahay maxal raacsiya ku dhahay ged ama meega la raacsiya kana sidoo mid marka ama ged raacsi ama meeg raacsi okay meeg aan soo qaadano sababta meeg loo soo qaadana maxay tahay ila ereyada understand iyo habi ayaga habis understand is buwaqti qaar way iska dhaan balse markii tennis aan ama grammar aan loo fiiriyo ayaga mala siiyo waxa la keenaa adjective loo keenaa oo ged ama meeg ala daba raacsiya kuwaas ama gedis ama meekis ala dhaa marka ogow laakiin buwaqti kale qaar understand is habis ee dhaan balse markii la joogo tennis grammar marka la joogo understand iyo habi iyo waxa la soo qaata markii la jumla in la geliyo waxa la soo qaata get ama meega la soo qaata get is habi alla make understand alla makes understand alla okay hadda waxaan dhahaa marka your sister makes me verb maxay isu siiyey ila sister subject meesha la wuxuu yahay singular so that markaas verbka waxa u siiyey is aan siiyey maxaa marka your sister makes me understand the money that is in inta ku jirta lacagta mobile gudiis maxaa isticmaalaa marka mobile maxaa waay kali waa singular maxaa siya marka is inta ku jirta lacagta mobile gudiis in isticmaalaa marka maxaa isticmaalaa boos in isticmaalaa marka sababta in isticmaalaa maxaa waay waxyaabaha waxa gudaha ku jira maxaa isticmaalaa inaan loo isticmaalaa had walaasha hadii guri ku jirto walaasha aab loo dhaw oo dhahay walaasha waxay ku jirtaa guriga maxaa isticmaalaa marka inglishaan in isticmaalaa in the house aan leedahay marka had soo daad marka lacagta inta ku jirta mobile gudiisa ku jirta marka maxaa la isticmaalaa in la isticmaalaa taas waxa loo isticmaalaa in loo isticmaalaa marka macnaha marka wali your sister makes me intaas maxay tahay walaasha waxay i fahansiisaa the money lacagta dad maxay tahay isku xiraysa Soomaa laba jumla isku xiraysa like marka dhaho the money is in my phone qalad waa ila maxaa ka maqan meeshii isku xiriyaa ka maqan relation ka maqan isku xiriyaa ka maqan maxaa marka ay aad u baahan macnaha marka your sister makes me understand the money that is in my phone walaasha waxay i fahansiisaa lacagta ku jirta mobilkeega okay next day
su-aasha xigta ee lixaad waxaan odhan nabaddu waa jiritaanka noloshayda. Fiiri, nabaddu waa jiritaanka noloshayda. Midan maxay tahay? Tennis labaad maya. laakiin maxay tahay? Waa caadi waa English waa tennis labaad maaha. macnaha nabad maxaa waaye? Peace. macnaha the peace, nabaddu is the existence, waa jiritaanka of our life ee noloshayna, ama of my life ee noloshayda. Naga su-aasha toddobaad, ha aaminin nafsadaada. Ha aaminin nafsadaada. yaa la hadloo you aqorsoma adiga ha aaminin nafsadaada. meesha you aqorsan erey waxaa jirto oo you subject u qarsan yahay. ha aaminin oo kale, ha rumaynin, ha icaanin, ha idilin, ha dilin, istaag, fadhiiso, amar sooma. laakiin maxaa u qarsan? you subject u qarsan. had maxaa noo leh? ha aaminin. yaa la hadloo ha aaminin you guy. ha aaminin aa marka adiga ha aaminin. yaa qorsan marka subject you qorsan marka. maxaa dhaa marka ha aaminin nafsadaada. tennis labaad isku milimta waxaa jiro aan waxaa usoo qaad muhiimada aan usoo qaad waxay tahay inaan dab raacsiiyo tenniska. laakiin muhiimada waxay tahay in hadalkan aan u bedelo tenniska labaad, balse laakiin hadaladani waa tennis, laakiin tenniska labaad ma ahan. okay, maxaa la marka ha aaminin nafsadaada. maxaa dhaa marka don't trust yourself. ha aaminin marnaba ha aaminin. laakiin dual la diidmo soo ha aaminin Allah soo. maxaa dhaa marka don't isticmaala macnaha don't trust yourself. ha aaminin noloshaada, ama don't trust ourselves. ha aaminin noloshayna. okay, su-aasha ugu dambeysa sideedaad waxaan olahay waxaan dahabshiil lacag oogu soo qaadaa hooyaday macaan. fiir iska fir jumlad dheer waa. waxaan olahay waxaan dahabshiil lacag oogu soo qaadaa hooyaday macaan. jumladu tenniska waa dhacdo maalin kasta ka dhacdo waa hooyaday maalin kasta waxaan usoo qaadaa dahabshiil lacag oogu soo qaadaa. maxaan dhaha marka my mother, hooyaday. maya cafwan, macnaha marka waxaan dahabshiil lacag oogu soo qaadaa ana la soma maya waxaan dahabshiil lacag oogu soo qaadaa hooyaday macaan. maxaan dhaha I take la text ma dhigi karaa? no ma dhigi kari. ila subject meesha la fiya jimacay waa I subject verbka ismara. maxaan dhaha marka I take waxaan soo qaadaa ee money lacag. inta ka soo qaadaa mid ogow walax markii meel ka soo qaadaysid waxaa loo isticmaalaa from. marka meel ka soo socdo waxaa loo isticmaalaa from. marka walax meel u wadin waxaa loo isticmaalaa to. marka meel aadin waxaa loo isticmaalaa to. midaas ogow. marka adiga meel ka soo socdo waxaa loo isticmaalaa from. marka wax meel ka soo qaadid waxaa loo isticmaalaa from. marka meel aad u socdo waxaa loo isticmaalaa to. marka adiga meel wax u wadin waxaa loo isticmaalaa to. hadda aniga inta wax ka soo qaadaa dahabshiil ka soo qaadaa soo ma isticmaalaa from isticmaalaa. maxaa marka I take a money from dahabshiil ana marka I take a money from dahabshiil. maxaa marka with my sweet mother waxaan usoo qaadaa hooyaday macaan. ficil maxaan dhahay I take a money from dahabshiil with my sweet mother. waxaan dahabshiil lacag oogu soo qaadaa hooyadayda. marka simple waxaad ogaataa hadalka ama lagu weydiiyo ama hadalka ku qoran af Soomaali haduu yahay awalan horta koodi inta aadan u bedelin Englishkiisa iska hubi horta dhacdada ama hadalku miyay hadal ka hadla dhacdo maalin kasta dhaca. kadib tenniska waad u bedel. ila mar qaar waxaa jir kara mar oo adiga wax lagu soo muujiyo lagu dhahin u bedel. ila markii af Soomaali lagu qoro ma lagu dhahay u bedel tenniska u bedel ma lagu dhahay. ila hadalka la fiiriyo hadalka dhacdo ka hadlayo ama meesha ku yaalaba ma lagu dhihi karo u bedel tennis u bedel ma lagu dhihi karo. balse markii tennis lagu qoro ama for example tenniska 10aad tenniska 9aad 8aad lagu qoray waxaa la dhahaa u bedel tennis koowaad ama labaad ama shanaad ama saddexaad ama 12aad u bedel lagu dhahaa. laakiin af Soomaalidu meesha ku yaal ama lagu weydiiyo ha isku dhihin tenniska u bedela. ila tenniska uu yahay ama af Soomaaliga uu yahay tenniskiisa u bedel bis. had maxaan oo fiiriyaa waxaan u lahay macalinka wuu farxa goortii aabaha farxo. ila maxaa u jeednaa inuu yahay hadal ama dhacdo maalin kasta dhaco. tenniska iskala marka tenniska laado simple present tennis. marka taas ay inoo fahanteed laga rabo marka maxaa ku dhaca markii wax meel laga soo qaadan waxa la isticmaalaa from. marka meel adag imaanayso waxa la isticmaalaa from. marka meel u socdo waxa la isticmaalaa to. marka wax meel u wad waxa la isticmaalaa to. okay, marka cashirkeena halkaasi ayuu noogu eg yahay. channelku waa channel cusub. haddii uu yahay markii koowaad ee channelkani daawato fadlan subscribe share like intaba noogu caabi si aad u hesho casharo ku xiiso geliya. intaas waa codsi